kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaan halkani waa Gadiid Media Production waxaad mar walba kala socon doontaan YouTube channel-kani wararka sportiska kuwa caalamiga iyo sidoo kale kuwa maxalliga ah haatan aynu weecanno liigii ka socday degmada Balad Xaawo ee xarunta ganacsiga gobolka Gedo degmada Balad Xaawo ayaa waxa waayadan dambe ka socday liigaasi oo ku tartamayeen 24 kooxood oo ah kooxaha heerka koobaad wajigii koobaad ee liigan ayaa soo xirmay iyadoo 12 kooxood oo kamid ah 24kii u tartamayay ay isu soo hareen wuxuuna isku aadka wajiga labaad ee kooxahani u dhacay sida tan ugu horeynba waxa isku aaday kooxda Elman iyo sidoo kale kooxda Real Star ayadoona ciyaartaasi ay dhici doonto 23 bishani 24 waxa isku aadan kooxda Hormuud iyo kooxda Iskuuley halka 25 bishani ay isku aadan tahay kooxda Dhabad iyo sidoo kale kooxda Hirdo 26 bisha sagaalaad ee sanadkan waxa dhici doonta ciyaar u dhaxaysa kooxda Atlas iyo sidoo kale kooxda MBC Darwish iyo Boocbooc oo ayaguna isku aaday ayaa waxay ciyaari doonaan 27 bishani ugu dambeyn 28 bisha waxa ciyaari doona kooxda Balatul Aamin oo ku aaday kooxda Qadhow ayadoona tartankani uu ka dhici doona gegida kubadda cagta ee Elman Stadium Gadiid Media Production wuxuu had iyo jeer u taagan yahay inuu soo gudbiyo warar xasaasi iyo sidoo kale xogta dhabta ah ee la xiriirta sportska haddaba daawada si mar walba aad ugu xirnaato Gadiid waxaad ku dhufataa subscribe button-ka adigoona sidoo kale sii furanaya gambaleelka waad ku mahadsantahay daawashadaada iyo sidaad mar walba ugu heelan tahay inaad na garab taagnaato